hadduu xaaskiisa u yeero oo uu dhaho uu dan ka yeesho sariirta hadduu ugu yeero oo ay diido xataa fiiri waxaa xadiista qaarkood ay sheegayaan marka uu u yeerayo xataa hadday foorno kor taagan tahay oo raashin karinaysa inay yeesho nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam hameenka hadday diido oo uu ka xanaaqo waxay waa bariisanaysaa iyadoo malaa'iktu ay lacnadayso lacnad baa ku soo degaysa innaga raggeenu waxay u badan yihiin waxay ku leeyihiin oo sheekh annagu baryootan baa ma ku jiraaye saan u baryootamayno intaas oo markaan maalmood wax baryootamayno wallahi waxaan arkay dad marka ay soo eed sheeganayaan oo niman ah oo ku dhahayo bil dhan baan baryootamaya waa xaq uu leeyahay bil dhan markaas la ma caaw madaxa xanuunaya ma caaw saanaanahay ma inta jirta ciyaalku ha seexdeen sug xagga sida loo meermeerinayo yaa bilo lagu dhamaynaya macna ninkii marka muxuu sameeynayaa meel kale wax ka raadsanaya waxa dhacday waxyaabaha ajiibka wax kamid nin wax meel wadamada muslimiinta kamid ah maalin roob da'ay oo dadki isu soo baxeen oo dadku markay suuqa ka adeegan roobku doo waa arteen dumarku dharka way laalaabanayaan suus uga wasaqoobin ayaa wuxuu yiri war maanta finna jirto oo dumarkii qoobabka iyo qaaqaawiyeena ninkii xaas lahow orod gurigaaga aado irbad isku soo dhufo irbadda isku soo duraya waa maxay waa macnaha waxa weeye xaaskaaga dan ka soo yeelo dumarka kalma fiirfiirinaysa fiiri waa wax ajiib ah meesha ku jira nabi sallallahu alayhi wasallam wax weyn u daaweynaya markuu nabigu hadlay sallallahu alayhi wasallam ninka yimid hadduu rabo xaaskiisa qalbigeeda inuu mulkiyo oo qalbigeeda uu yeesho asagana ha ku dadaalo arrimaha soo socda maxaa arrimaha ka mid ah gabadha uu qabo in uu ka dhaadhiciyo inay dumarka ayadu ugu qurxoon tahay dumarku waxay aad ugu dagaalamaan quruxda inuu dhaho wax kaa qurxoon ma jirto waa kow in uu dhaqaalaha uusan ka hakranin gacantiisa iyo jaabkiisa inuu u furo waxay rabto inuu siiyo deyntay rabtaa soo qaadato dhar baa la keenaya hadda waa taqaanaa waddamadan dhar baa la keenaa dhar bay soo xaabsanaysaa wax yar weji gabaxyay ka arkin intaad oo dhar hay wadataa soo maaha lacagta hore ka bixisi akoonkaaga akoon free uga dhig waxa arta kala baxde qofkaas way aaminaysaa waxay isleedahay ninkan wax u dhaqaale haddaynan ahayn qof xun waa la wanaajinaya ninkaas waana midda Soomaalidu waxay dhihi jireen gabadha way dhici kartaa baa la yiri inay saddex wiil kaaga tagto ay ku dhashay laakiin saddex dhari oo buuxbuuxda kama tagto macna saddex dhari oo buuxbuuxa maxaa laga wadaa akoonka haddii xoogaa fiican kugu jirto waliga kaama tagayso waa sida iyagu dhahaan Soomaalidu say aaminsan yihiin laakiin hadday 10 wiil ku dhasho oo isqabataan way ka dhaqaaqaysaa macna sababta dumarka waxa la yiraahdaa ilaahi baa wuxuu ku qalbigooda wuxuu galiyay xubbul jamaal qurux inay jeclaadaan tan kale shaqada ninka uu qabanayo secure hadda fiiriya dhalinyaro waxaan arkay ka sheeganayso badan waxay ku leeyihiin gabar kasta oo guur u raadsano waxay leedahay jaamacad ma dhigataa college ma dhigataa maxaad ka shaqaysaa annaguna ma weydiino gabadha college ma dhigataa jaamacad ma dhigataa markaas waxaan dumarkan waxay raadinayaan nolol secure way raadinayaan nolol habaysan oo ayna ka fakirin maxaad cuni doontaa ninkan ma shaqayn doonaa way ku fakaraan marka ay guursanayaan marka nolosha ama bakhiiltinimo yaan laga arkin gacantaadu ha furaato waa waxyaabaha qofka dumarka ninku haddii uu ugu jilicsanaado ay qofka ay qalbigeeda uu gelayo waxaa ka mid ah waana ikhwaani waa mid cajiiba u fiirsada ninka in weligii naagtiisu xaaskiisu aynan u arkin inuu yuusgaraynayo o isticmaalayo weligaa inayna ku arkin inaad isticmaalaysa iyada isticmaalkaas nooc kasta ha noqdo gogasha markii ay tahay inaad u tustid in labadiinuba laba qof oo isjecel oo wada dhaqmaya aad tihiin laakiin intaad 6 saac intaad taxi ka soo degtay ama kowda oo gabadhiga hurda aad wax u doonatid maxaa dhacaya dhibaato imaanaysa in marka ay u aragto qofkan dumarka ninkan in ay xuquuq ahaan ay la siman tahay oo uu respect garaynayo oo uu jecel yahay oo uu wanaajinayo ay wada dhaqmayaan waxa ka mid ah khidmada guriga markay guriga ka shaqaynayso inayna u arag in la yuus garaynayo wixii uu awoodo inuu qabto inuu la shaqeeyo oo shaqada la qabto oo ciyaalka la hayo oo uu garab taagnaado noloshii marka maxay dhacaysaa fiiriya
waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah waxyaabaha dumarku qoraan waxaa ka mid ah waxay dhahaan marka ay ninka guursato gabadhu weligaa geed ama kursi meel yaalam ku tiirsatay qofku marka hore suxul ku saaraya wuu fiirinayaa inuu dhacayo in kale Soomaaliya arag wuu isku tiirinayaa hadduu adkaado xoogaa waa taabanaysaa hadduu adkaado waad ku fariisanaysaa saas ma way isku kaaday way isku ka tiirin haddaad dhacdid way ka durkeen haddaad u taagnaatid oo ku aaminto way kugu soo durkeen haddaad u taagnaatid oo ku aaminto way isu ka dhiibeen xaqiiqadu saas weeye in marka weligaa aan laga arag inaad adigu meeshaan dan ku wadatid oo qofkan aad chance adigu aad ku wadatid oo ka faa'iideysanaysid inay noloshu noqoto markaas waxay ku noqonaysaa iyaduna adoon saan sheegaynay oo kale ikhwaani waxaa ka mid ah jiljilaaca aan leenahay dumarka loo jilicsanaado meeluhu ka yimaado nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu xaasaskiisa la dhaqmayo xadiid bukhaari iyo muslim ku sugan caaisha waxay leedahay kaana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu bacda azwaajihi wa huwa saa'im nabigu xaasaskiisa qaar ka mida ayuu shushumin jiray asagoo sooman waa mucaamalo wanaagsan oo ku tusaysa jacayl iyo dhimrin ku tusaysa markaasuu nabigu waxay leedahay caaisha markii xadiis saxiix muslim ku sugan kaana nabiyu sallallahu alayhi wasallam yadhillu saa'iman nabigu wuu soomanaan jiray fakaana yuqabbilu maa badaa lahu min wajhi aw kama qaalat radia allahu canha nabigu isagoo sooman ayuu wuxuu dhunkan jiray wejigayga intii uu rabo wejigu iga shushumin jiray waa maxay waa caatifad fiiriya shahwo keliya ma aha ogaada ma aha mar kasta oo dumarka waxyaabaha qadaayaadka dhaca waxaa ka mid ah nin wadaad ah beri gabar buu guursaday waa sheeko dhacday hadda oo la galay arrinta oo la yaqaan dhacday markuu guursaday gabadhii baa ninkii way isku xumaadeen way isfahmi waayeen markii ninkii la wareysanayey waxyaabuhu dhahay waxaa ka mid ahaa gabadhan markii ay isla aqal galeen buu ku dhibaatooday dumarka marka ugu horeysa waxaa dhici karta dhaqanka guriga inay ku dhibaatooto markaasuu wuxuu go'aan ku gaaray inuu xoogaa dad baa kula taliyey waxaa la yidhi xoogaa u kaadi inta nafsiyadeeda ay degaysa iyo xoogaa qofku ay degayso markaasuu wuxuu leeyahay markii uu ka dacwoonayey anugu waxaan go'aan ku gaaray inaan daayo laakiin markaan habeenkii seexdo gacan bay ila soo aadaysaa nin namaa joogtid markaasaan hadda korka kaga dhici markaasaa meeshii dhibaata ka imaan war gacantaan lagula soo aaday ma shukaansiba labada qof soo isma qamaan soo isma jeclaan soo naxariis kama dhaxayso labada qof haddii mar qofka ma wuxuu arkaa haddii la shumiyo in dan la iska leeyahay haddii la istaabtay in dan la iska leeyahay ma aha ikhwaani marka waa nolol wanaagsan iyo naxariis waa sacaadada